بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. maanta waxaan bilaabeynaa course la yidhaahdo medical terminology. Medical terminology waxa weeyaan luqadda caafimaadka ama barashada la baranayo termiska caafimaadka. Tusaale ahaan wax kastaba waxay leeyihiin terminology. Tusaale ahaan accounting terminology buu leeyahay. wax kasta oo la baranayo waxay leeyihiin luqad gooni oo lagu fahmo. Marka maanta waxaan baranaynaa luqadda caafimaadka, ama aynu oranee kelmadaha aynu ku fahmi doono ama luqadda caafimaadka ayaynu baran doonaa insha Allah tacaala. waxaa la yidhaha medical terminology baa la yidhaahdaa, ama barashada la baranayo termiska caafimaadka ayaa la yidhahdaa. anigo kiisaabta doona ayay idiin soo jeedin doona insha Allah tacaala. marka wuxuu noqon doonaa xoogaha ayuu noqon doonaa. marka waxaynu soo qaadan doonaa bar ka mid ah. waa fahan guud, waa wado aynu markaa macalinku waxa weeye waa wado unbuu kuu tilmaamayaa, overview buu ku siinayaa, si guud buu kuu tusayaa. abocdana in yar buu kaaga soo qabsanaya, inta kale laakiin adigaa leh ardayo. inta kale adigaa leh, oo intaa in ka badan inaad sii baadho adiga mas-uuliyadaadu saaran tahay. waxaynu ka dhigan doonaa inagoo soo summary soo taabanay ama soo koobnay. marka waxaynu qaadan doonaa insha Allah tacaala maanta casharkii ugu horeeyay. casharo dambena way ka dambeyn doonaa insha Allah tacaala. waxaynu markaa isweydiin doonaa wuxuu yahay medical terminology ama wuxuu yahay. markaynu intaa fahno ayaynu hore u socon doonaa. marka hordhaca ama introduction to the medical terminology-ga aynu ka bixin doono, ama hordhaca aynu ka bixin doono luqadda caafimaadka barashadeeda. waxaa la yidhaha medical terminology is language, waa luqad easy loo isticmaalo ama easy isticmaalaan by the healthcare professional, dadka ka shaqeeya ee professionka u ah, dadka caafimaadka ka shaqeeya. to the communicate sida ay ugu wada xiriiraan bay u isticmaalaan effectively sida ugu wanaagsan in the clinical settings, meelaha caafimaadka oo dhan, meel kastoo caafimaad lagu soo hadal qaado oo laga shaqeeyo. tusaale mchadii, cisbitaaladii, meelihii outreachadii, meel kasta oo dad caafimaadi joogaanba waa loo isticmaalayaa. maxay markaa faa-iido leedahay? waa understand medical terminology. fahanka medical terminology is essential, waa muhiim for the accurate documentationka. yani wax kasta si aad wuxuu u muhiim yahay waxaa la yidhaahdo accurate waxa weeyaan inaad saxnaanshaha ku dadaasho. markaa saxnaanshaha documentationkeena ayaa inoo wanaagsanaanaya marka aad fahanto medical terminology. weliba muhiim bay u tahay marka documentationka la sameynaya in luqadda aad fahansan tahay. sidoo kale communicationkay faa-iido u tahay, collaborationka, healthcare, wada shaqeynta iyo xidhiidhada ka dhexeeya ayay u muhiim tahay marka aad faham guud ka haysato luqaddu. marka luqad kastaba luqaddu waxay fududeynaysaa isfahanka laba qof iyo koox ayay fududeysaa. luqaduhu waa intaas may fududeeyaan. haddii luqadda carabiga taqaano, luqadda ingiriiska taqaano, luqadda faransiiska taqaano, waxay kaa caawineysaa in communicationkii iyo wada shaqeyntii iyo wixiiba kaa caawineysaa. marka luqadan caafimaadkuna waxay kaa caawineysaa everywhere qof caafimaad bartay ama qof dad bartay caafimaadku ay joogaan, waa si fudud baa ula xiriiri kartaa, ula shaqeyn kartaa. waayahay marka luqadan waxay ku dhisan tahay structure bay leedahay. structureka ay leedahay waxa weeyaan ta ugu horeysa waxayaan waxay ka sameysantay yani waa ereyo la isku geeyey. ereyada la isku geeyey markaa word structure baynu odhanaynaa. erey kasta oo horgala kelmad waxaynu odhanaynaa prefix, waa horgale. rootsku waxa weeyaan waa foundationka. tusaale ahaan haddii aan yidhaahdo caagada ka hor iyo caagada kadib, caagada waxay noqonaysaa maxay? rootkii bay noqonaysaa. ka horna waxay noqonaysaa prefix. suffixku waa maxay? waa dabagale, mar kasta waxbuu dabagelaya. componentskana waxaa la yidhaha waa waxyaabaha lagu daro, ama xagga damaha lagaga daro ama kelmadda xagga dhexe lagaga daray. componentska waa kelmado isku tegay ama kelmad kale loo geeyey.
way laakiin structure-ka caadiga saddexdaa un bay ka dhisan yahay. Brefixku waa horgale oo wuxuu horgelaya tusaale ahaan biri hypertension. Biri waxa weeyaan waa maxay? Waxa weeyaan waa prefix oo horgalay. Hypertension, hyper waxa weeyaan waa horgale waa prefix. Root-ku waa maxay? Waa tension-ka. Waa tension-ka tuutisku. Way suffix-kuna waa dabagale. Inta inaan isla fahanay baan rajeynayaa. Way mid baynu soo qaadanaa. Bal prefix-ka aynu soo qaadan, haddana root-ka aynu soo qaadan, suffix-ka aynu soo qaadan. Way prefix-ki baan soo qaadan. Way sharaxna markaa iyagoo explanation-kooda leh. Prefix-ku waxa weeyaan wuxuu naga caawiyaa helps wuxuu naga caawiyaa to describe inay ku qeexno the location ama aynu garano location, direction. Location waxa weeyaan meesha, goobta, direction dhinac ama jiho, amount qadarka. Intaas uu inoo sheegaa prefix-ku. Waynu soo qaadan doonaa tusaalooyin. Way location-ku waxa weeyaan tusaale ahaan muxuu inoogu sheegi karaa? Wuxuu sheegi karaa waxaas inay dhow yihiin, xagga loo socdo, xagga sare, ku dhex jira around hareerihiisa ah. Meelaha intaasba waxay noo sheegayaan kelmadaha. Marka lagu yiraahdo tusaale ahaan haddii lagu yiraahdo pericardia ama myocardia waa wadnaha qaybta maxay? Muruqa ah. Endo waa xagga hoose, endocardia witi weeyaan. Way direction-ka markuu inoo sheegay waa away waa halka, from beneath xagga hoose, above xagga sare, between inta u dhaxaysa, before xagga hore ama ka hor, after xagga dambe. Marka wuxuu inoo sheegay direction marka kelmad kasta waynu ku qaadan doonaa tusaalaha. Amount wuxuu inoo sheegayo lack of inaan meeshaas waxba jirin, absence yahay. Without wuxuu inaanay ka mid ahayn, excessive inay ku badan tahay. Way difficult ay ku adag tahay. Difficult waxa adag tahay tusaale dyspnea, neefta ku adag. Way root-ku waa maxay? Helps determine which part of the body it's related to. Meesha lala xiriirinayo waxa ayuu isagu ka sheekeeyaa oo wuxuu noo qeexaa qaybta uu ka tahay parts-ka. Tusaale ahaan pericardia. Peri waxa weeyaan waa prefix. Cardia waa maxay? Waa wadnihii. Inta maslaxayna cardia marka wuxuu noo sheegay wadnihii xaggiisa sare ama layerkiisa sare ayuu noo sheegay. Suffix-ku waxa weeyaan dabagale. Wuxuu naga caawiyaa describe qeexa what words or problem relates. Weerka kelmadda problemka lala xiriira. Tusaale ahaan waxaan hypothyroidism EISM ta dambe waxa weeyaan waa definition-ka sheegaya in hyper uu kacsan yahay thyroid-ku. Hyper waxa weeyaan waa prefix, thyroid waxa waa root, maxay ism ta dambe ama ISM ta dambe waa suffix. Wuxuu sheegaysaa markaa problem inuu ka jiro maxay muxuu ahay thyroid-ka. Way aynu si yar socono. Prefix-ka marka uu sheegayo tusaale qaadana. Prefix-ka markuu sheegayo size iyo location iyo amount ayaynu qaadanayna. Way qaybtan waa size wakaas. Size-ku marka wuxuu sheegayaa macro waa wax microbiology, microorganism waxaas tusaale lagu soo qaadan. Megalo or ama megaly abnormal. Macro waa large oo wax balaaran, micro waxa weeyaan waa wax yar. Way megalo waa wax balaaran, waa large markuu sheegayo. Way xaggana aynu ka way direction iyo location-ka markaynu ka sheekeyno kelmadahan baa sheegaya. Hyper waxaas waxa weeyaan waa wax kacsan, waa vast elevate waa wax kacsan oo in badan la soo saarayo. Way hypo waa wax hoose. Wuxuu noo sheegay speed ama direction. Low inay yahay waxaasi oo low energy yahay waxaas oo kale ayuu noo sheegay. Waa above the low, wixii above the normal low, xag wixii hoose ayuu ka hooseeyaa ama normalkii hoose ka hooseeyaa. Normalkii loogu talagalay waxa ayuu ka hooseeyaa. Tachy waa rapidly, waa si aada. Tachycardia ayaa caana. Tachycardia inuu wadnaha garaacu sareeyo. Bedidi waa hooseeya, slow weeyaa. Pericardia waxa hooseeya cardiac ama wadnaha garaaca. Extra
outside location buu inoo sheegay marka extra outside ama xagga sare weeyaan axis xagga sare endo waa gudaha oo location buu inoo sheegay endoplastic endocardium waxaas wuxuu inoo sheegaya wax hoose intrauterine xagga hoose uterine-ka ama makaanka dhexdiisa haye sii soco beri waa maxay beri waa xagga sare around waa waxa ku wareegaysan tusaale ahaan pericardia wadnaha xaggiisa sare trans waa wax ku gudbaya wax kale u gudbaya transfer transmission waxaas kaasoo tusaale across truth waa wax dhex tusaale ahaan dhex maraya wax